waxyaalahan aad ula yaabay waxaa ka mid ahaa beri aan maka joogayba maxaa aad weli baa la xidhayo sharcigaaga wax ka khaldan yihiin waa la xidhay marka waxay qorkii tarxiilka geeyeen dadka laga soo musaafirin jiray waraaqdiina waa la qoray marka waxaan la hadlay niman aan gargaranayo maka iyo joogay daa'if cid waa ka garan waayay hal nin baa reer laascaanood ka joogaa layo ninkiina waa ka maqan markaasaan cid aan la hadla garan waayo waa iska murgeeyo meeshana marka waxbarasho u tegay inuu jaamacadda ka dhameeyo markaasaan ilaahay bariyo waxaan ilaahayo habeenkii dambe salaatuleylkii intaan kacay way soo waxa wuxuu yidhi abo mobilkana waa layga qaadaya waana la silsiladeeyey warkaygu intaasu ku dhayay marka habeenkii baan ilaahay bariyo waxaan ilaahayo waad og tahay xitaa inuu sacuudiga ka soo shaqaysta ma aan geynin waxaan u geeyey inuu ilaahayo cilmi ka soo barto diinta islaam ilaahayo ka sii daa marka barqadii buu soo wacay dambe markaasaan ku war maxaa ku helay markaasuu waa lay soo daayay oo see lagu sii daay nin uunbaa soo galay sarkaal anigoo silsiladaysanoo lay garaacayay maalmahan oo dhano markaasuu igu yidhi war maxaad waddanka u joogtaa waxbarashaan u jooga war naga sii daaya soomaaliga yarki war iska tag marka dadkii baa ila yaabay oo qolyihii reer laascaanood ee meelaha joogjooga ila yaaba waxay yidhahaan macquul maaha qof sacuudiga lagu qabsaday oo sharcigiisa wax ka khaldameen in la sii daayo iyadoo aan boqorrada la soo baryin ama kuwa madaxda ah ma suuragal ahabay siday u dhacday markaasaan waxaan ku idhi iska daadhacday la soo daa sidii buu ku teg waxaan uga socdaa beri kalea hawl saasoo kaleo culus baa igu dhacdayo cidna umaan sheegina ilaahay baan iska bariyey maalinkii dambe mase ilaahayba subxaanahu wa tacaala hawshii ilaahay waa kara wakhtigaasaan ilaahay bariyey waxaan uga socdaa war waxaad ogaataan salaatuleylka wakhtigaasi wakhti caadiya ma oo wakhtiga ilaahay odhanayo yaa i baryaya aan wax siiya marka aan sheegaya dayn fara badan baa laygu yeeshay marka waxaan ka fakeri gurigaa aan deganaa talow daynta makaa bixinaya iyo mid kaloo dayro halkaa ku lahaa may lacagtaasi gafayni mayso saan yeelaan garan waaye marka ilaahay baan iska baryay cidna uma sheega ma odhan dayni ka bixiya cidna ma barye dee faraj kala ilaahay subxaana wa tacaala waa iska bixiyey daynta iyadaan cidina xitaa in laygu leeyahay lama ogaan waxaan uga socdaa wakhtiyadaas waa wakhtiyo khatiiro ah wakhtiyo khatar ah wey marka ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa wax fududeeya ee qofku ha ogaado qofkii xaajo iyo dan leh ilaahay wakhtiyadaas wakhti gaara weeye allah ka baryo subxaanahu wa tacaala waxaan kale oo insha allahu tacaala wakhtiga ku jira aynu xusuusinayno haddii habeenkii laylatulqadriga hadduu kuugu darsamana isaga warkiisa badho waxaynu leenahay insha allahu tacaala waxaa kaloo ku jira wakhtiga aynu ognahay oo afurada oo nebigu sal alla alayh wasalam uu leeyahay lisaa'imi cinda fitrihi dacwatun laa turad qofka soomani markuu afurayo waxa weeye wuxuu leeyahay baryo ilaahay aqbalo oo ilaahay uusan ka celin taana waxbaan uga soo joogay soomanaante bal habaarkana ha la iska ilaaliyo waxa loo duceeya dadka marka ilaahay aynu barino oo soomka aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka barino in ilaahay subxaanahu wa tacaala roob ina siiyo aynu ilaahay ku barino wakhtigaynu afurayno iyo wakhtigaa salaatu ee saxarka oo wakhtigaas suxuur waxaa loo yidhi waa wakhti qarsoon sixirka waxaa sixir loo yidhaahdaa sixirooluhu magacyo jin iyo balaayo isku xidhxidhaayo tuuguu sameeyaayo waxbuu isku laalaabaayo markaasuu qofka sixiraa dhididka qofka ama raadkiisa tuugo intuu ku doono ama mare uu leeyahay wax la mida ama raad uu leeyahay sida cididihiisa iyo timaha iyo waxaasuu wax ku sixiraa si tuuga ah buu u raadinaya marka innagu waynu naqaanaa arrintaa saxar baa ishayga ka dhacay soo ma nidhaha saxarku waa wakhtigu saxarka wakhtigaa qarsoon weeye oo ilaahay qariyey walmustakfiriina bilasxaar allah uu leeyahay kuwa ilaahay dembi dhaafka weydiisanaya wakhtiga suxuurta marka waxaynu leenahay insha allahu tacaala aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadiisa badsanno waxaan is leeyahay inteenna magaalada joogto qudha ama inta masjidka haddaynu